kulankan oo ahaa wada tashiga qorshe wadaagga guddiga wada xaajoodka iyo hay'adaha ku shaqada leh siyaasadda loo dhan yahay ayaa maanta magaalada Muqdisho waxaa ka daafuray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxaana kulankan oo 3 maalin ka soconaya magaalada Muqdisho ka soo qayb galay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha guddiga qaran ee doorashooyinka dalka iyo qaar ka mid ah wasiirada dastuurka ee dowlad goboleedyada dalka iyo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan ujeedada kulankan ayaa sidii loo dardargelin lahaa shirkii dhawaan ku soo gabagaboobay beedhabe u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kaas oo waxyaabo badan oo muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed ee ka soo baxeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo kulankan ka hadlay ayaa sheegay in muhiimad gooni ah u leedahay bulshada qaybaheeda kala duwan inay ka qayb qaataan sidii dalka xal waara loo gaari lahaa isla markaana doorasho qoficada ee wadanka oo ka dhici lahaa sidii marka loo wada shaqayn lahaa ayadoo la midaysan yahay horena loo fiiriyo meelaha ay ka imaan karaan kulanka shaqooyinka hay'adahaas waxaa kaloo ku jira meesha ayadana in la fiiriyo waqti kooban oo la haysto u diyaargarowga shirka Brussels SPF-ka in clusterkan tubta loo dhan yahay ay si fiican uga wada hadlaan oo ay ururiyaan habeeyaan qaabkii ay uga qaybgeli lahaayeen si muuqata shirkaas in badan oo kalena way wehelin doontaa wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Xoos Jibriil oo daafurka kulankan isna ka hadlay ayaa sheegay inay dardargelin doonaan sidii loo dhameystiri lahaa dastuurka oo ay haystaan jaanis 6 bil ah hadda marka waxaan isugu nimid waxa waaye kow in la fiiriyaa maxaa loo baahan yahay in la dhameystira labadaas shir oo la soo gaaray waxa ka imaan karo loo baahan dhinaca dastuurka ama dhinaca sharci dejinta maxay tahay maalmaha soo socday inaan laga wada hadalno waa taas tan kale inaan hiigsanaa inta hartay oo u baahan in lagu dhamaystiraa arrimaha siyaasadda u baahan waxa ay sanadna waa 6 bilood marka sababta natiijada loo sameeyo waxa waa inaan focus sameeyno wixii ka soo baxana ra'iisul wasaaraha wuxuu noo soo ballan qaaday in loo gudbinayo guddigii tubta mataqaanaa siyaasadda loo leeyahay si operational looga sii dhigo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa kulankan daafuray isla markaasna waxa uu ku dheeraaday ahmiyadda kulankan iyo shirkii beedhaba ka dhacay ee u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka waxaan rabaa marka maalmaha halkan aad isugu imaanaysaan inaan idinka xumaan saacada inaan idinka khasaarin maskax shiil ayaa halkan la isugu yimid su'aalaha waaweyn oo na hor taagan oo ah doorasho noocay ahaan yeelanayna dawlad noocay ahaan yeelanayna awood qaybsi noocay ahaan yeelanayna khayraad qaybsi noocay ahaan yeelanayna hoggaan noocay ah ayaan u rabnaa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed su'aalahaas haddii aan laga jawaabin taariikhdan waxay weligeed joogaysaa haddii aan soo dhaafo su'aalahaas haddii laga jawaabo waxaan rabaa waxaa idin muuqanaysa Soomaaliya ka duwan midda hadda aan joogno waan isku raacsanahay cadaalad noocee ah ayaan leenahay waddanka sidee baan u wada leenahay rag iyo dumar awood sidee loo qaybsadaa waxaan rabaa marka inaad u fikirtaan meeshani inay tahay fursad weyn oon la isdhihin waa shir la isugu yimid 2 ama 3 maalmood arrinka labaad oo aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay waxaa muhiim ah inaad ogaataan annagu haddii aan nahay xukuumadda ama dawladdu madaxweynuhu farmaajo hogaamiyo waxaa naga go'an inaan ka shaqayno waddankan in laga gudbo wixii la ahaan jiray waxaa naga go'an waddanka inaan loo fiirin sidii uu ahaan jiray ama sida uu yahay laakiin indhaha lagu fiirinayo dalkan ay noqoto sida uu ahaan karo mustaqbalka waddankan sida uu ahaan karo عندي أصور لهينا وضدك هالكم فني. عبد الكريم شدنا ورباهين تجوب بلان مقدشو.